dadku waxay ugu yeeraan taksiilaha taajirka waxaan ahay ninka kaliya Soomaaliyeed oo ku taksileeya gaariga la yiraahdo Rolls Royce Ghost magacayga Maxamuud Axmed Diiriye Guled baa la yiraahdaa wadankan waxaan imid 1989 qaxooti baan ku imid alxamdulillah school baan ka galay college baan ka galay 1996 ayaan shaqadan taxiga soo galay marka alxamdulillah intaas oo company baan maxaa u soo shaqeeyay imikana maanta company baan iska leeyahay alxamdulillah ilaahay baa ii fududeeyay inaan maanta anigu yeesho gaariga Rolls Royce qiimihiisu uu yahay maxaa 280,000 oo pound customer waxay madaxtooyo boqortooyo oo carabta ka timid footballayaal oo u ciyaara tiimka premiership-ka ah oo kamid ah Crystal Palace kabtankooda kabtankii Ghana Michael Essien Steven Appiah maalintii waxaan ka qaadaa 114 ayaan ka qaadaa 12 saacadood airportkana waxaan ku tagnaa 200 oo gini kalarka buluuga waxaan ku doortay Rolls Royce baan u tagay Manchester marka waxaan ku yiri calanka Soomaaliyeed baan u geeyay gaari waxaan u baahanahay calanka Soomaaliyeed oo kale oo eg markaas kan gaarigan baa la soo saaray gaarigan buluuga sidii waan ku doortay يعني وقف أنا هنا قف صومالي هاي success كيكونوا وصومالينيمو إلهي بمحله يوالدكي يسود علي يودن كان كإمت مركا يودت كان كذا شيء مركا الحمد لله تاسع قف أنا customer كيكونوا ويديان all the time حاجات كتمت من صومالي أنا هاي دتك الصوماليات عادي بيبوتها غيرن والسبورت في عم بانك هلاي صومالي لما جوتوا لهم الحمد لله waxay ugu yaabka badnaa oo markaan istaago oo meelaha Central London oo kale inay dadka anoo gaarigayga ku jira Rolls Royce Ghost oo astaanta calanka Soomaaliyeed anoo iska fadhiyo inay sawir ila dhacaan booliska Ingiriisku way joojin jireen bariga hortaan gawaadhida yaryar wadan jiray iminka maadaama Rolls Royce Ghost wato ima joojiyaan oo markaan traffic light meelaha iskaga nimaadno انت قاعدتي تاغام يغو سمايل غرينيا يعني اوفر احسن ايان ستافنا waxaan iibsanayaa kambanigayga maag inuu gaaro private jets inaan yeesho insha Allah future-ka ilaahay haduu ila qabto inaan private jet oo Soomaaliya ka duulaya ilaa meel kasta dacalaha adduunka oo dhan insha Allah inaan yeesho insha Allah